beesha caalamku waxay war-saxaafadeed rasmiya ka soo saartay aragtidooda ku wajahan xaaladda siyaasadeed ee Somaliland iyo muranka doorashooyinka qaramada midoobay urur goboleedka IGAD midowga Yurub Mareykanka Jarmalka Ingiriiska Norway Ireland Belgium Sweden Denmark Holland Finland Faransiiska Talyaaniga Greega iyo Switzerland ayaa si wada jir ah u soo saaray warmurtiyeedkan wadamada noo taageera hanaanka dimuqraadiyadeed ee Somaliland waxay si adag uga hadleen muddo kordhinta golayaasha baarlamaanka oo markii horeba sanado badan oo aanay kalsoonida shacabka aysan kuraasta ku fadhiyay beesha caalamku waxay ku baaqday in dib loogu noqdo isafgaradka ay xisbiyadu gaadheen bishii July si doorashada wakiiladu ay u qabsoonto dabayaaqada sanadkan waxay intaa ku dareen in arrintani ay dhaawac laxaad la gaarsiinayso sumcadda Somaliland iyo meeqaamkeeda dunida beesha caalamku waxay ka deeriyeen xaaladda xorriyatul qowlka ee Somaliland iyagoo walaac ka muujiyay xadhiga aan sharciga ahayn ee xukuumadda waa sida ay hadalka u dhigeen waxay sidoo kale bogaadiyeen dadaalada socda ee lagu kala dhexgalayo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka ugu dambeyn waxa lagu xusay warmurtiyeedka in kaliya hay'ado si dimuqraadi ah loo doortay ay dadka reer Somaliland gaarsiin karaan horumarka ay higsanayaan warkan ayaa imanaya xilli ay socdaan kulamo ay beesha caalamku la qaadanayso dhinacyada uu muranku ka dhex taagan yahay gudoomiyaha xisbiga UCID ayaa magaalada Nairobi shalay kula kulmay qaar ka mid ah danjirayaasha shisheeye ee Soomaaliya iyadoo la filayo in dhinacyada kalena ay la kulmaan sida xisbiga wadani iyo xukuumaddu Khadar Haybasaab TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida